soddon maalmood baa ka hadhay koobkii adduunka. waa dhacdo ay bulshaweyntii ruushka ay sugayaan iyagoo weliba ay u qabaan xiise aad u weyn isla markaana ku rajo weyn inuu xilkoodu guulaysto. laakiin taasoo ay caqabad ku tahay xululka aadka u magacyada weyn leh meesha jooga oo ay ka mid yihiin Brazil iyo Jarmal iyo Faransiisba. halkan imkaan arkaynaa waa Moscow, waana fagaareyaasheeda ka mid ah oo lagu taagay saacadaas oo tiradeedu ay hoos u socoto iyadoo ay tahay maalintii soddonaad ee ka hadhay koobkii adduunka. waxaana sii kordhaya tirada dadka barxadda imanaya ee iskaga qaadaya ama ku galaya sawirada xusuusta leh iyagoo dadkaasi ay isku jiraan caruur iyo ciroolaba. dhaqdhaqaaqa barxaddaasina waa mid aan caadi ahayn iyadoo la wada sugayo bilowga koobka adduunka ee bilaabmi doona kaasoo ay ka harsantay 30 maalmood. waxaa sii kordhaya kolba xiisaha dadka ku abuurmayay laabahooda. waa hubaal inaan taageero dalka Ruushia waxaan u rajaynayaa natiijo fiican. xulka labaad ee watana waa Jarmal. haddii aanan buunbuunin waxay ila egtay inay Jarmalku ku guuleysan doonaan. طبعا Brazil waa murashaxa koob taasoo aan jecelahay xulkaygu inuu soo gaadho wareegga labaad. aniga dhinacayga waxa ku guuleysanaya koobkan Jarmal sababtoo ay tahay waa koox isku xiran oo dhisan. waxaana ila tahay inay isku imanayaan finalka xulka Jarmalka iyo Faransiiska. waa ka xaalka jawiga ee Ruushka hadda ka taagan xiisaha leh ka hor intaanay bilaabin dhacdadii weyneed ee dhabta ahayd ee koobkii adduunka. haddaba yaa yeelan doona kelmadda u dambeysay ama guusha hadalkaas ku soo jaraysa.